فكرة ganacsiga igu soo dhacday aan isleeyahay waa shaqaynaysaa sideeba u noqon kartaa fursad ganacsi oo shaqaysa fikradda way kugu soo dhacday waxa tani wallahi fursadan aad buu fiicanta fikradda ganacsi waa fikrad shaqaynaysa sideeba fikradda u tijaabin karaan oo oran karaa fikraddan waa sax dhowr arrimood waan adeegtaa daawada haddii aad rabto fikraddaada inay noqdo fursad ganacsi oo shaqaysa dhowr arrimood baa laga rabaa kow fikraddaada ganacsi waa inay noqotaa fikrad soo jiidinaysa dadka isla marahan taa ay suurtagal tahay in la fulin karo fikraddaadu waa inay soo jiidasho leedahay oo marka sidaa loo eego fikrad baahi jirta ka jawaabaysa waa inay noqotaa waa inay baahida dadka ay la hadlayso waa inay ka jawaabaysaa kow isla marahan taana waa in la fulin karaa fulin waxa loola jeedaa waa inay dhaqaale ay u baahan tahay uu noqdaa dhaqaale suurtagala haddaad tira fikrad ganacsi baan keeno 2 milyan baa u baahan tahay dama shaqaynayso waa inay noqdaa fikrad ganacsi oo fulinteedu dhaqaale ahaan iyo xataa timeka u baahan tahay in lagu fuliyaaba waa inay fudud tahay oo macquul ay tahay dawada fikraddaada ganacsi aad runtii la rafanaysaa ee maskaxdaada ku soo dhacaysa waa inay noqotaa fikrad suuqa laga hirgelinaya waa inuu suuq koraya noqdo suuq koraya waa inuu noqdo suuq ay ka shaqaynaysa tusaalaan ku sii daawada waxa tirnaa fikrad ganacsi oo weyn baan hayaa oo waa maxay inaan warshad kalluun aan keeno magaalada Berbera oo kalluunka aan sameeyo warshad marka millions day nagu kacaysa su'aal baan ku weydiinaya yaad ka iibinaysaa suuqa ka iibinaysaa waak hadda tira suuqa Soomaaliya ma ka iibinaya suuqa Soomaaliya kuma filna warshada kuma filna waa inuu noqdo suuqan aad geenaysaa suuq weynaanaya hadda marka tira suuqa ka iibinaya waa ilaa Itoobiya ilaa intaasoo meelood ban geynaya waxa ay soo baxaysaa fikraddan ganacsan inay leedahay suuq weynaanaya laakiin suuqaagu hadduu noqdo intaan maxaayay ay noqoto maxaay Soomaaliland haday noqoto fikra kalluunkana aad warshad weyn keentay waxa iman karta inuu khasaare ku soo gaaro marka waxa lagu leeyahay fikraddan ganacsi aad wadato suuq ay ka shaqaynaysaa ha noqdo suuq koraya oo weynaanaya waa inuu noqdo oo balaadhanaya daawada fikradda ganacsiga tiro waa haya ee dadka nafta kaga jartay dadna aanad u sheegin inaad qaranaysaa waa inay noqotaa fikrad ganacsi oo iyada kor u kici karta iyada isbalaadhin karta fikraddu hadaan kor u kici karin oo isbalaadhinayn ma shaqaynayso tusaalaan ku siiyo waxa tirniyo dugsi aad u la yaab lan ka furaya xaafadda noocaas waa sax weeyaan waa shaqaynaysaa su'aal labaad baan ku weydiinayaa magaalada xaafadaha kale magaalada dugsiga ma ka furi kartaa markaas aad tiri maya fikraddaadu ma shaqaynayso sababtu waxaan u shaqayn fikraddaadu ma korayso fikraddu waa inay kortaa oo marka dugsi xaafadda aad ka furto xaafad kalena waa inaad ka furi kartaa mid kalena waa inaad ka furi kartaa waa inay sidaa u soconaysaa fikraddu shaqaynaysa intaasoo meelood laakiin haddii aad tiradan iyo layma ogola inaan xaafad kale ka furo taasuma ka furi karo sharcigu ogol yahay maxaa imanaya fikraddaada ganacsi meel kale ku gaartay waanay koobantay muddada shaqaynaysa waa laga yaabaa inaad macaashto muddo kooban baad macaashaysaa laakiin ma sii jirayso mustaqbal weyn marka fikradda waxa lagu leeyahay fikradda laftigeedu waa in noqotaa mid shirkadii iyo kambanigii fikradda lagu fulinayay waa noqdo kambani kor u kacaya oo weynaanaya oo furuuc yeelanaya oo branch yeelanaya oo mustaqbal weyn yeelanaya daawada fikraddaada ganacsi eed haysataa ilaahay ku barakeeye waa inay noqotaa fikrad ganacsi oo mashruuc ganacsi ka sheekaynaysa yaana noqon product kaliya inaad ka hadlayso tusaalaan waxaa tiri warniyo aniga codkaygu aad buu macaayay waxaan soo saarayaa nashiidooyin baan soo saarayaa nashiidooyinkaasaan ganacsiga abuuraya waxaa ku leeyahay fikrad ganacsi way fiicanta laakiinse waa product weeyaan adigu aad soo saarayso ma sii jiraayo muddo waxa laga fakiraya waxa weeyaan ganacsi mashruuc ganacsi waxaagu waa inuu noqdaa haddii aad tirada anigu waxaan soo saarayaa kambani ka shaqeeya anaashiidda inuu duubo oo anigoo kaliya intaasoo qofku kalu ka duubaya muxuu noqonayaa waa mashruuc ganacsi waa ganacsi weyn buu noqonayaa mustaqbalna leh laakiinse markaad tirada anigoo kaliya iska duubaya waa product weyn waa wax yar adigu aad soo saarayso muddo dheerna ma sii jiraayo marka waxa ku leeyahay fikraddaada ganacsi ha noqoto yaana product adiga ku kooban yaana noqon wax yar adigu soo saartay computerkan ku fiican oo computerada anigu hagaajinaya hadaad tiraahdo meel ma gaaraysid laakiin hadaad tira center baan furaya computerada lagu hagaajiyo oo khubaro kale waa keenaya computerada hagaajiyo anna waa ku jira waa mashruuc ganacsi weynkaas laakiin hadaad adigu isku koobto waa product yar aad soo saarayso daawada
ganacsigaagan fikradan ganacsi si ay u shaqayso fikradan ganacsi waa inay macaash soo saarayso fikrad laga macaashayo macaash samaynaysa waa inay noqotaa maaha fikrad keliya lacagta ay soo saaraysaa inta yare operationkuna ay ku filaanaysa lama rabo running cost-ka hadda running cost-ka way soo saaraysaa running cost-ka taas ma shaqaynayso waa inay ribx iyo macaash soo saartaa fikrad ribx iyo macaash markay soo saarayso fikradda ganacsi ayaa la oran karaa waa fikrad saxa oo mustaqbal u soo socdo dawada fikradaadan ganacsi haddaa rabta inaad ogaato inay shaqaynayso waa in tiimkii ka shaqay lahaa ee kartida aqoontada lahaa waa inaad gacanta ku haysa fikradan bacidii ka shaqeynaya haddii aanad gacanta ku haynin odlada nin dibad jooga oo ajnabi ah ka shaqeynaya fikradaadu aad bay khatar ugu jirtaa inay fashilanto waa in tiim u diyaara oo joogto ah oo khubara ah oo waxa ka shaqeeya oo gacanta ku haya waa inay ka shaqeynayaan oo hirgelinayaan markaasaa la oranayaa fikradda ganacsi waa fikrad ganacsi oo shaqeynaysa dawada intaa markaa waxaan ku soo koobaynaa fikrad ganacsi haddaad maqasho waa fikrad shaqaynaysa oo baahi jirta ka turjumaysa oo macaash soo saaraysa oo isballaarinaysa oo weynaanaysa weeyaan laakiinse inta badan waxaa inagu dhaca dad badan mashaariic bay ka fakiraan laakiinse waxaa mashaariicdaasi ay ku duldhintaan maskaxdooda ku duldhintaan dibadda uma soo saaraan iyagoo qaar badan ka baqanaya in laga ogaado casharadina soo socdan kaga sheekayn doonaa sida fikradaad aaminsan tahay aad u ilaashan karto intaasay ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu